maanta waa maalintii 683 ee dagaalka Gaza. ciidamada Israa'iil ayaa sii wada weerarada ay ku bartilmaameedsanayaan teedooyinka dadka hoyga oo ay sidoo kale dadka raadsanaya gargaarka, iyadoo uu weeraro culus lagu qaaday deegaanka Al-Mawazi ee magaalada Khan Yunis, halkaasi oo ciidamadu ay rasaas ku fureen dadkii ku sugnaa ee waqooyiga Rafah, taasi oo keentay dhimasho iyo sidoo kale dhaawac badan oo halkaasi ka dhashay. isla arrimahan ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale maanta qarxiyay guryo badan oo ku yaala qaybo kamid ah Gaza, iyagoo sheegay inay qayb ka tahay qorshaha military ee ballaaran oo laga yaabo in ay ku lug yeeshaan qabsashada magaalada Gaza oo dhan. qorshahani ayaa waxaa maanta si rasmi ah taliyaha ciidanka Israa'iil ugu gudbiyay wasiirka difaaca Israa'iil Israel Katz, waxaana loogu magac daray qorshaha qabsashada Gaza. dhanka kalena tirada dadka ku dhintay ayaa sii kordhaysa Gaza. ilo ku sugan isbitaalada Gaza ayaa xaqiijiyay in 26 Falastiiniin ah lagu dilay duqeymaha iyo rasaasta ciidamada Israa'iil tani waa barigii hore ee maanta, waxaana ku jiray 4 qof oo sugayay gargaar dadkaasi dhintay. isbitaalka Al-Nasir ee magaalada Khan Yunis ayaa soo sheegay in qof caruur waliba ahaa uu ku dhintay duqeyn cusub oo Israa'iil ay ka geysatay magaaladaasi. waa tahay markana Xamaas ayaa ku baaqday in Israa'iil la saaro cadaadis caalami ah si loo joojiyo waxa ay ugu yeertay xasuuqa iyo gaajada loo adeegsanayo dagaalka Gaza. bayaan uu soo saaray ururka ayaa lagu sheegay in ku ekaanshiyaha cambaareyn aan ficil lahayn uusan waxba ka taraynin ee dagaalka, iyadoo oo lagu baaqay in la furo marinada si gargaarka bini'aadantinimo loo gaarsiiyo shacabka nugul. dhanka kalena qoysaska maxaabiista Israa'iil ayaa maanta xiray wadada Ayalon ee magaalada Tel Aviv, iyagoo dalbanaya in xukuumaddu ay gasho heshiis isdhaafsi maxaabiista oo degdeg ah. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in dibadbaxayaasha ay ku baaqayeen in la helo xal degdeg ah oo lagu badbaadinayo nolosha dadka ku jira gacanta Xamaas. isla maanta xubno ka tirsan Yuhuudda xagjirka ah ee meelka adag ayaa weeraray gudaha masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, halkaasi oo ay ku sameeyeen waxa ay ku sheegeen cibaadaysi, iyadoo ciidamada booliiska Israa'iilna ay si buuxda u ilaalinayeen dadkaasi. arrintaasi ayaa sii horinaysa xiisada ka taagan magaalada Qudus ee Israa'iil ay xooga ku haysato. geesta kalena hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil Yair Lapid ayaa ku qeexay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu yahay siyaasiga ugu sunta badan ee siyaasadda dunida ama caalamka. Yair Lapid ayaa sheegay in la dagaalanka Netanyahu uu xoojinayo hogaamiyaasha dunida ee dimuqraadiga ah, sababtoo ah waa qof sun ah kuna ah siyaasadaha caalamka. waa tahay markana haddii aynu eegno war degdeg ah oo ku saabsan heshiiska xabad joojinta ee dagaalka Gaza, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Majid Al-Ansari ayaa sheegay in Qatar iyo Masarba ay heleen jawaabta Xamaas ee ku saabsan hindisaha heshiiska xabad joojinta ee Gaza, balse ay weli sugayaan go'aanka Israa'iil. Al-Ansari oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha islamarkaana wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar oo shalay ka qayb galay wadaxaajoodidii ka dhacay magaalada Al-Caalamiin, kaasi oo ku saabsanaa xabad joojinta. weli waxaan sugaynaa jawaabta Israa'iil ee ku aadan heshiiska xabad joojinta, ayuu hadalkiisa sii raaciyay. dhanka diblomaasiyadda ee dagaalka Gaza haddii aynu jaleecno, wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Penny Wong ayaa ku eedeysay xukuumadda Benjamin Netanyahu inay si qalad ah u karantiishay Australia, taasi oo dhaawacaysa dadaalada nabadeed iyo aragtida labada dowladood. sidoo kale dhanka safaaradda Faransiiska ee Israa'iil ayaa xaqiijisay in Paris ay qorsheynayso in bisha Sebtembar si rasmi ah u aqoonsato dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin, iyadoona sheegtay in tallaabadan ay tahay mid lagu doonayo in lagu helo wadan nabadeed oo looga baxo colaadan iyo sidoo kale kala tafaraaruqa ee Gaza ka taagan. inkastoo Israa'iil ay weli si weyn uga soo horjeedo arrimahanna ay ku sheegtay mid iyada dhaawacaysa oo lagu soo horjeedo. waa tahay markana waxaynu soo gaarnay xubinta ugu dambeysay ee barnaamijka oo xubinta falanqaynta, taasi oo alaaba ku soo qaadano warbixinada iyo xogaha ay bixiyaan khubarada arrimaha militariga, kuwa istiraatiijiyadda, ciidamada, siyaasadda iyo weliba sirdoonka. sidoo kale waxaan ka marnay xubintan oo ku soo qaadanaa kuna qaada dhignaa arrimaha waaweyn kuwaasi oo warbaahinta caalamku ay wax ka qorto amaba ay baahiso. xubinta maanta waxaan ku soo qaadanaynaa qorshaha Netanyahu ee qabsashada Gaza oo hub ku sii dhacaya, iyadoona Xamaas la sheegay inay Netanyahu gelisay xaalad adag oo jahwareer ah, go'aankeeduna uu yahay mid aad u adag.
Israel waxaa qasab ku ah inay aqbasho soo jeedinta cusub ee dhexdhexaadiyaashu soo bandhigeen iyadoo raacaysa jidka nabadda iyo sidoo kale soo afjaridda dagaalka. macluumaadkii ugu dambeeyay ee arrimahan iyo waxa ay khubaradu ka tiri waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Yaxya Ciise. waxaa muuqata in heshiis xabad joojin ku meel gaar ah laga gaarayo dagaalka marinka Gaza kadib markii kooxaha iska caabinta Falastiiniyiintu ay ogolaadeen heshiis cusub oo ay soo bandhigeen dhexdhexaadiyaashu. hase yeeshee weli waxay ku xiran tahay ogolaanshaha Israa'iil oo laga warsugayo. kooxaha Falastiiniyiinta ayaa ku heshiiyay qorshe cusub oo xabad joojin 60 maalmood ah taasi oo lagu bedelanayo sii deynta qaar ka mid ah maxaabiista iyadoo Israa'iil aysan weli cadeyn mowqifkeeda. sida ay sheegeen ila xog ogaal ah qorshaha cusub waxa uu dhigayaa in la isku bedelo 10 maxbuus oo Israa'iiliyiin ah oo nool iyo 18 meyd ah laguna bedelo 1700 oo Falastiiniyiin ah oo xabsiyada ku jira oo ay ku jiraan 45 qof oo ku xukuman xabsi daa'im iyo 15 xukunno lagu riday. saddexdii maalmood ee la soo dhaafay waxa wada hadallo ay ka socdeen Qaahira iyadoo Xamaas ay ku adkeysanaysay in dhammaan kooxaha iska caabinta laga qayb galiyo wada hadallada si mowqifku uu noqdo mid ah loogana hortago in lagu eedeeyo inay fashiliyeen wada hadallada ama shacabka Gaza ay u nugleeyeen duulaan cusub. qorshuhu waxa uu dhigayaa in la sii daayo 8 maxbuus oo Israa'iiliyiin ah oo nool bilowga xabad joojinta 60 maalmood ah. inta lagu guda jirana laga wada hadlo joojinta dagaalka oo dhan 2 maxbuus oo kale ayaa la sii deyn doonaa maalinta 50aad halka meydadka Israa'iiliyiintana si tartiib ah loogu wareejin doono inta uu jiro hindisahani. 1500 oo kamid ah 1700 ee maxaabiista Falastiiniyiinta ee heshiiskan ku jira ayaa laga soo qabtay marinka Gaza wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar 2023. Israa'iil waa inay aqbasho sida uu sheegayo Adolf Franco oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. warkani waxa uu abuurayaa rajo ku saabsan in la xalliyo dhibaatooyinka bini'aadanimo iyadoo oo lagu xiran yahay joojinta dagaalka. taasina waa dariiqa kaliya ee gargaar bini'aadanimo lagu gaarsiin karo Gaza. Franco waxa uu intaasi ku darayaa in aysan dan ugu jirin xukuumadda Israa'iil inay diido heshiiskan maadaama Xamaas ay ka tanaasushay shuruudihii ahayd xabad joojin joogto ah taasi oo ay ahayd qodob muhiim ah oo Israa'iil ay hordhigtay heshiiska wada hadalka. sidoo kale Franco waxa uu sheegay in gumeysi buuxa oo Gaza uusan Israa'iil u wanaagsaneen balse inta xabad joojinta lagu guda jiro ayaa u suurtagelin kara in ay ka wada xaajoodaan arrimaha ammaanka iyo mustaqbalka Gaza iyadoo ay qayb ka yihiin dalalka Carbeed iyo caalamka. waxa uu aaminsan yahay in Israa'iil ay aqbali doonto soo jeedinta maadaama ay taageerayaan Mareykanka isla markaana ay tahay tallaabo togan oo lagu bilaabayo xalinta khilaafka. Israa'iil jawaab degdeg ah kama bixin doonto. qabiirka arrimaha Israa'iil Dr. Mohamed Mustafa ayaa sheegay in Israa'iil aysan si dhaqso ah uga jawaabi doonin soo jeedinta si ay u qaboojiso hadallada ku saabsan in Gaza la qabsanayo oo ay maalmahan howlaheeda ku qorsheynaysay. Xamaas ayaa ku qasabtay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu galo xaalad siyaasadeed oo adag iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil uusan filaynin in dhaqdhaqaaqu uu aqbalo soo jeedinta shuruudaha cusub maadaama uu ku daray shuruudo aan macno badan lahayn kuwaas oo hor istaagay wada hadalka. Netanyahu waxa laga yaabaa inuu ku adkaysto in shuruudo cusub lagu daro soo jeedinta oo ku aadan in Israa'iil ay gacanta ku hayso ammaanka Gaza si uu ugu qariyo shacabka in aqbalaadiisu ay tahay natiijada cadaadiska Xamaas iyo xaaladaha militari ee ugu dambeeyay. qoraaga iyo falanqeeyaha siyaasadeed Wasim Afif ayaa sheegay in shacabka Gaza ay qabaan rajo taxadar leh iyaga oo filaya heshiis dhici kara taasi oo yara dejisay xiisadii ka dhalatay hanjabaadihii Israa'iil ee duqeynta cusub. shacabka Falastiiniyiinta ah waxay u arkaan jawigan mid togan maadaama wada hadallo ballanqaadyo iyo kulamo heer sare ah ay ka socdaan Qaahira oo ay ka qayb galayaan madax ay ka mid yihiin madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi iyo ra'iisul wasaaraha Qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda Sheikh Mohammed bin Abdulrahman. hase yeeshee Afif waxa uu sheegayaa in wali uu jiro shaki maadaama way aragnimadii hore ee Israa'iil ay muujinayso in waqtiga ugu dambeeya Israa'iil ay burburiso heshiisyada iyo inay ku darto shuruudo aan macno badan lahayn. Yaxya Ciise, HBN Online TV. waa hagaag aad buu u mahadsan yahay Yaxye. guud ahaan daawadayaal waxaa intaasi ku eg barnaamijka wararka maanta oo si toos ah uga daawanayseen HBN Online TV. si aad u hesho wararka, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ku soo gudbino. haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan ama waadan hore ugu xirnayn hadda ku soo biir. tan iyo intaynu dib ugu kulmayno barnaamijkan kiisa xiga
nabadgelyo.